taariikhyahanadu dunidu in badan baa cumar la xusaa ama dowladiisii. maxaa gaal iyo muslimba cumar loo xusayaa? waa maxay miisada ka muuqata xukunkiisii? nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar baa kasii cadaalad badnaayeen, laakiin saaxaday ka taliyeen baa waxay ka yarayd saaxada cumar ka taliyey. cumar dowladdiisu waxay ahayd dowlad wakhti dambe joogtay oo atraaf ilcaalam dunida in ballaadhan ka talisa. sanadkii 17 hijriyadu markay maraysay ayaa waxay muslimiintu qabsadeen alkuuri 7 meel ay yidhaahdaan 7 meelood. waa meesha imika ahwaaziya waxa la yidhahda ee Iiraan ka tirsan. meesha waxaa markaa madax ka ahaan jiray hurmuzaan boqor la odhan jiray oo boqorradii bershiya ka mid ah. dabeetana muslimiintu markay soo qabteen ayaa waxaa la yidhi cumar ha loo diro. boqorkii iyo wixii meesha lasoo qabtoo dhan baa la diray. niman madaxana waa la soo raaciyey. ragga la soo raaciyey saxaabaa ka mid ahayd. anas ibnu maalikya baa ka mid ahaa saxaabadii soo raacaysay taarikhyahanadu sheegaan. waxaa ka mid ahaa ninkii mukhadaramka ahaa ee alaxnaf ibnu qays. waxaa ka mid ahaa ninkii mukhadaramka ahaa ee alaxnaf ibnu qays la odhan jiray oo reer banu tamiim ninkii odayga waayeelka u ahaan jiray. waa la soo waday. madiine dacalkeeda markii la marayay ayay waxay yidhaahdeen qoladii maxaabiistan waday, war bal cumar aan aragna dadka kale siduu u nooliyey aan tusinne ninkan boqorka wixiisii oo dhan ha loo xidho. ninkii boqorka ahaa waxaa la siiyey waxa boqortooyadiisa markuu fadhiyey wixii uu xidhan jiray, dahab iyo koofiyado iyo wixii uu dhar xariir iyo wuxuu isku taxi jiro oo dhan ayaa loo dhiibay. dabeetana isagoo boqor u muuqda oo wixiisii oo dhan xidhan oo taaj weyn oo mukallal bilyaquut sita ayuu soo galay. markay magaalada madiine soo galeen ayay cumar soo raadiyeen. gurigii bay yimaadeen. cumar baa gurigii laga waayey. waa la weydiiyey cumar xagguu jiraa? waxaa la yidhi cumar wuxuu ku maqanyay masaajidkuu jiraa. masaajidkay yimaadeen. masaajidka markii ay soo galeen bay waxay arkeen cumar oo masaajidka meel ka mida duuduubana hurda halkaa masaajidka dhexdiisa. saxaabadii way ka xishoodeen inay cumar toosiyaan. meel bay iska fadhiisteen. markaa waa madaxay jecel yihiin walow uu boodhkiisa iska hurdo halkaa joogo agtooda waa mubajal, waa mukaram. way iska halkaasaa la fadhiistay. hurmuzaan baa markaa wuxuu yidhi ayna huwa? ninkii madaxda aynu raadinaynay meh? waxaa la yidhi huwa daa, masaajidka dhinaciisa waa ninka halkaa jiifa. markaasuu wuxuu weydiiyey ayna xarasu wa xujaabu? xaraskii askartii ilaalinaysay iyo xujaabkii kuwan brotokoolka iyo waxayaan la soo dhaafina hore waxaa sameeya buu yidhi. waxaa la yidhi cumar.